السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل وعنو ونايسان داود الدركي بملك السؤال جوتان يوسف البوادين وداو نايسان halkani waa xulashada media oo aan kusoo gudbino arrimaha bulshada layaabka dhacdooyinka iyo waliba arrimo kasta oo markaas taagan oo aan isleenahay way habboon tahay in bulshada loo gudbiyo ama ba laga hadlo daawade hadday tahay markii kugu horeysay fadlan nagu caawin inaad subscribe noo saarto share-tana hanaga ilaawin like iyo comment-gaagana waxa ay tahay dhiirigelin aad u wanaagsan hadda ka qabo waa xulashadiini waa xulashadii xiisayaasha waa xulashada media daawadayaal waxa kan soo fariistay oo aan rabaa inaan ku faaqido ku jeexjeexo hadduu eebo raali ka noqdo sheeko ka taagan magaalada Muqdisho su'aalahaas ma isweydiisay maxaa diiday in YouTube-leyda magaalada Muqdisho ay isgacan qabtaan maxay isku xasidayaan xog muhiim ah oo arrinkaas ku saabsan ayaan rabaa oo aan halkan u soo fariistay inaan kaga hadlaan rabaa haddii aad og tahay windul baninkii dhisaa ka weyn ay Soomaalidu tiraahdaa cunug walba socda ogow aabiis ayaa soo gacan qabtay waa soo gurgurtay waa uu kufay waa loo sacbiyay waa la niyad dhisay waa la sii dhiirigeliyay darajo sare ayuu gaaray haddaynan qofkeenan kufo la dhiirigelinin kii socon karinna socoshada markaasi aan lagu garab galin waxa ay imaanaysaa markaa in dhibaato ay dhacdo tusaalaha ugu muhiimsan daawada waxa ay tahay YouTube-leyda magaalada Muqdisho waxa ay ka duwan yihiin dhaqanka ay leeyihiin kuwa hadda qurbaha jooga way iscaawiyaan sharcawda isku sameeyaan way isdhiirigeliyaan hebel waa laga xasdinay ku leeyihiin waa dad ilbax ah wax ka yaqaano nidaamka dawliga ah iyo sida qofka bini aadamka ah loo taageeri karo yaqaana laakiin kuweenan xamar joogo way isxasdaan tusaale ahaan ma arkaysid laba YouTube-ley isla socota ma arkaysid laba qof oo saaxiib ah oo meel wada fadhida oo sheekaynaya arkinaysid ma arkaysid alla asaga dad saaxiib ah oo qofka kale ku dhiirigelinayo in arrintan ay tahay arrin ilmaha biilkooda ay tahay laga bariisiinayo caanihi laga helaa inay tahay ma arkaysid dhibaato taagan marka magaalada Muqdisho YouTube-riskooda badanaa isla ma socdaan way isficlaan muuqaaladooda like isku masaaraan subscribe ma siiyaan tusaalaha ugu muhiimsan aan ku soo qaadanayo waxay tahay durdur media iyo makaanaha media waxay ahaayeen labada kaliya ee hormuudka u ah marka la fiiriyo YouTube-da magaalada Muqdisho ee ka hana qaaday dhalinyaro fara badan ku daysatay guriyaal fara badan ku daystay majaajiliyaal fara badan ku daystay fanaaniin fara badan ku daystay iyaga ayaa role model-kii noo ahaa lagu daysanay YouTube in laga bariiseeyo magac iyo tayo laga sameeyo soo bandhig fiican la sameeyo iyaga ayaa sabab u ahaa maanta dhibaatadan haysata waxay tahay Xasan Toob oo durdur madax ka ah iyo Ismaaciil Xaaji Cabdalla oo mataanaha madax ka ah maanta islama hadlaan haday kulmaan iska day in la isla sheekaysto la isla socdo la isdhiirigeliyo la isku wanaagsana sidaasina ma fiicneen dadkii anaga role model-ka noo ah aan ku daysanaynay ee dartooda anaga inta ka masiirnay ilaa waxa la yiri ficil feeraha kuma abuurna facaaga ku siyaa la yiri ficilkeenu ugu abuureen ay hadii aan YouTube sameeyno ku soo biirno halganno haday iyaga maanta saaxiibo ahayn wax aad looga xumaado waxaan rabaa anigu sheekada Xasan Toob iyo Ismaaciil Xaaji Cabdalla waan guda galay ma aha mid aan views iyo subscribe iyo share aan ku raadinayo waxaan rabaa xaqiiqada inaan kaga hadlo Xasan Toob waa qof saaxiibkayga ka soo shaqeynay Ismaaciilna sidoo kale dhowr sano ka hor ka soo shaqeynay 2012 2019 ayaan iskala soo halganay idaacadaha magaalada Muqdisho saxaafaddu waxay leedahay sharci iyo shuruuc celiya ay leedahay waxaan rabaa jiilka soo socda in ay ku daydaan la rabay laakiin maanta sidii waa ay ka duwan tahay sheekada marka xaqiiqada ay kaga hadlo Xasan Toob iyo Ismaaciil waan la hadlay Ismaaciil wuu iga aqbalay inuu diyaar u yahay heshiiska la qabsan karo Xasan Toob waa raadiyay telefoon iga ma qabanayo shalay waa wacay Ismaaciil markaa isla kulannay Xasan waxaa rabay Ismaaciil inuu isku laabto Ismaaciil ilaa xaleelida si joognay aawa waa isku keenay ulubid inaan wada ballanay Ismaaciil waa is aragnay Xasan Toob telefoonka iga qaban nidaamiya waxay ii sheegay inuu meel xafid joogo haddana meel kale uu socdo ii sheegay balan waa lahayn marka
dadkii anaga aan ku dayanaynay haddii Ismaaciil maanta heshiiska diyaar u yahay maxaa diidan Xasan Toob inuu heshiiskii qaato xasan oo habeen dhaxdaas markaan Shaamo hotel aan soo dhaafay ee Alibaba Cosmetics aan ku qodolanay oo awaas Alibaba hadiyada la siinayay ani adiga waa wada hadalnay waxaan ku yiri saaxiib oo ku qabsan karaa dadkan indhaa u tihiin idinka shalay wax naga dhigay idinka magac nooga leh idinka YouTube nooga fiican inaan waxaan rabnaa bulshada sumcad dari iyo xumaan la tusinin oo aad u heshiisaan diyaar ma u tahay ku qabsan karaa diyaar ah Ismaaciil markaa la hadla diyaar ah Xasan Toob rag way isqabtaan وين هشيان لما كان ضماده dad saaxiibaa la yahay hadii daraad ah isqabateen Ismaaciil عش سعودتين isla soo halganteen asaga heshiiska raali uu ka yahay adiga maxaa ka hortaagan aniga ina ay dhahdo diyaar ah oo shaas waa gudgaleena ay dhahdo nidaami aan ku soo diray jawaab uu san isiinin adiga telefoon iga qabsanin saaxiib oo muqluq wax badnaatay dagaalkan ilaa fiina wixii oo saxdama iska jeclaatay dadka bini aadamka markay isdagaalaan way heshiiyaan laakiin ana waxaan rajeynayay in awal ku qaad leh ma ahna aslaha laakiin waa dareemi kara had sida duu celihi in aad la dhaqanto wallahi ma aysan ahayn telefoonkaaga inaad soo ugu dhageysato habeenkaas ilaa abtinaa telefoon ay ugu dhageysataa sababta maxay tahay Ismaaciil oo kulli heshiisinayaan ku iri sidaas telefoonka ugu dhageysanaysa sidaas wanaag ma ku aha sumcad sharafna ma ku aha waxa aniga korkay ka gubanayo oo aan ka xumayo waxay tahay bari marka aan oo saxaafadii masrax taagana xaflad xiriirinayo Ismaaciil oo joog albaabka marka ka soo gasho fanaaniinta meesha joogaad salaamaysa dadka taqaana salaamay laabta gelinay Ismaaciil ma salaamaysa markaas waxa dhacay dadka meesha fadhiyo hunu ay bilaabayaan waa isku dhacsanay mujeeda isla handooyi qawba waa soo shaqeeyaan waa sumcad daro waa sharaf dhac ama adigoo joogta Ismaaciil soo galay asxaabtii fanaaniinta wiilasha meesha joogeen oo salaamay adigu ku salaami wayna alle marka warna ninka deegiisa waa isku dhacsan dadkii hoose ka wada hadlaa ilaa xogtina loo yahay markana hoo wili kaam haray kaam qursanayo balama kala sii galeena insha Allah ilaahay waxaan kaaga rajeynayaa inaad naga aqbasho dadka saaxiibada ah ee dadkaasii u kala shadaal qaada isku diraayo wal hal gaadiya ninkii yiraahdo Lilof aniga kuma aflagaadinayo commentina kugu maraadinayo adiga Xasan Toob soo buush garinayo laakiin waxa damiir xumo anin wiri ah master degree sheeganay inaad soo buush garayso teeda kale xalay Ismaaciil waxa fariin u soo diray dad daawadayaasha kamid ah Xasan Toob ku caawinay daawo Allah wuxuu yiri Xasan Toob intuu aan hay dhaafo yiraahdaa aniga Ismaaciil waxa ku wada ballanay in Xasan Toob dambe Faris laga hadlay Xasan Toob waxaan kala hadlay in Ismaaciil Xaaji Cabdalla arimo u sayran oo san kala hadlay laakiin nin Lilof liiraado daraad markuu Xasan Toob u tagay Ismaaciil ma soo gilna Ismaaciil saan waa kiblow saan dada soo furis waa ku caasiyan qaba qof wax uu qabsan kara free waa meesha waa ka dhici kara hadaan la isfahmin waxa isku joognay inaga isku guursadeen iska dhanana kala tagaan nin shaqo isku keenkay waa kala tagaysi hooyadii aabihi bar hadaan isfahmaysin kala tagaysi nina shaqo isku imaatay hadaan isfahmaysin waa la kala tagaa soo maxaa loo kala tagay ma niyo linki Lilof la yiraahdo baasha bursa ka soo gashay burs oo weerti soo gashay annagana waxaan soo galnay anagoo xeerka sharciga saxaafadii naqaano xeerka saxaafadii sharciga anagoo naqaano maadaama aan soo galnay xeerana celiyo gaw suudigu waa hal door waa inuu leeyahay dhaqan wanaagsan soo jiidasho leh waxyaabaha adigu ku hadlaysa anaga kuma hadli karno ku fiicnimada aad sameynaysa anaga ma sameyn karno niyo hadaan wax xalli karin niyo Xasan Toob shaqada u noqon Xasan Toob remote control u noqon hadaan wax xallin karin labadan qof dad walaal ah soo wada halgamo waay kiiskooda waa in la xalliyaa dadka daawadayaasha taageerayaasha waxaan leeyahay bahashan ka qayb qaata dadkan saaxiibada aan heshiisino waad ogtahay 40 yooman salaada lama aqbalayo dadka hadday iyago isafinin ilaa 40 bir la dhaaf ka badan la dhaafay idinkana dagaalkaasi hurnaysi video soo diraysi hebelaha ka soo hadlay hebelaha saan ku dhahay waxa soo sharaf ida ma aha dadka YouTuberiska ilaahayna ka xisada animiyo aan istaageerno aan iswanaajino waa socdaal oo idin leh anigu waa Xasan idinku waa xiisayaasha magaaladu waa xamar jamalku waa xulashada xilliguna waa haga حاشا لله حروي سمقل انت ابو كل مدونو برنامج كان لميد waxaa idin rajeenaya mustaqbal wacan waayo suuba ayuu loo share subscribe like iyo comment sida iyo nabad geliyo bye bye